adigu ceelkaasaan hayaa ceelka magaalada baan hayaa odayga hayay baan ahay 10 jeer maxaabiis ahaan ii qateen biyihiina imika lacagtoodii waa ku leeyahay intaasoo sano waan ku leeyahay waana leeyahay Soomaaliya nu soconaa annagu nimanka goonu goosadka ah ee calanka waa ay xiriiryaha la sita annagu uma socono annagu calan baan u leenahay Soomaaliya calan bay leedahay annagu kii baan u soconaa waanu u soo dhimanay daraawiish baan la yiraahdaa horaanu ugu dhimanay haddana waa u dhimanaynaa inta qof naga noolyeena waa u dhimanaynaa anu waxaan Faadimo Cabdullaahi Ducaale waxaan ay hooyooyinka kamida tukaraq jooga ku nool waxa weeyaan nimankaas waxayna haysteen marka horeysa waxaan salaamayaa shirkaan salaamaya saxaafadda waa salaamaya ilaahay subxaanahu wa ta'aala ee nooleeyay ee nagu soo celiyay oo kuwana dhaafinayna waa u mahad celinaya mahad ilaahay baa marka hore iskale marka labaadna wixii hawsha ka soo shaqeeyay cid kasta oo shaqada ka soo shaqeysay waa u mahad celinayna marka saddexaad annagu waxaanu nahay hooyooyinkii ku noolaa magaalada hooyooyinkii qaxay baanu nahay hooyooyinkii caruuraha iyo waayeelkoodii xanuunsanayay dhaxanta aan xamilayn la qaxay baanu nahay kuwii dadka waalwaalan la qaxay baanu ka midna kuwii bista yaryar hubka kala qaxay baanu ka midnahay marka sad afraad waxa weeyaan nimankaasi waa noo yimaadeen habeen madow bay nagu soo guureen ma aanan u yeeran raalli kama aanu ahayn xoog bay nagu qabsadeen qof kale oo wada oo dhulbahanto ahi waxaan u malaynayaa sawd weyn ma lahayn waa uun horgalbo foosto la giringiranayuu kaasi ahaa markii dambena waa la xaadsadeen oo dadkii way ku baaheeno waxay keeneen inay annaga isku kaaya diraanba in reerba reer qaniinsiiyaan midka afshanaad waxa weeyaan buurahaas inta miyigu noo degi jiray caanaha nalooga keeni jiray xaabada nalooga soo guri jiray niista nalooga soo guri jiray reer guuraagu noogu degi jiray ariga marabidu noo daaqi jiray geela hashaanu irmaala noo daaqi jiray bay naga degeen hadday naga degeen raggii waxay naga geliyeen dhibaato nin kastoo hashiisa u gasho waxaa la yiraahdaa aroortii haddaad soo noqotid waa lagu biraynaya hashana waa laga qalaya waxay noqotay hooyo kasta oo qaaliya inay magaalada dhaafi weydo dariiqada inta noo jirta aanu gaari weyno annagoo iyaga ka baqayna beeraha aanu gaari weyno kufsi aanu ka baqno tacaddi kale aanu ka baqno wiilasheeda yaryara iyo gabdhaha iyaga yaryara xoolay waxay noqdeen inay magaalada dugooda lagu wareejiyo marka inta xigta annagu waxaanu u mahadnaqaynaa ilaahay naga kaxeeyay raggii qorshaha ka dambeeyay hadday yihiin garaadada hadday yihiin ismada hadday yihiin waxgaradka hadday yihiin cuqaasha hadday yihiin jamaahiirta dhammaan waa u mahad celinaynaa ha noolaataanu leena SSC ha noolaato wixii wax nagu darsaday ee arrinka naga taageeray dal iyo dibad carab nagu taageeray cod nagu taageeray gacan nagu taageerayna waa nala mid anagu nagala mid mowqifka kala mid baanu nahay Soomaaliya nu soconaa annagu nimanka goonu goosadka ah ee calanka waa ay xiriiryaha la sita annagu uma socono annagu calan baan u leenahay Soomaaliya calan bay leedahay annagu kii baan u soconaa waanu u soo dhimanay daraawiish baan la yiraahdaa horaanu ugu dhimanay haddana waa u dhimanaynaa inta qof naga noolyeena waa u dhimanaynaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacayga waxa la yiraahdaa Mukhtaar Sheekh Faarax baa la yiraahdaa waxaan joognaa tukaraq maanta waa xor shimbiraha maanta waa maqlaynaa ciidooda shimbiraha si wacan baan u maqlaynaa cuntaduna maanta dhadhan bay leedahay 6 sanadood baa anaga nahaysay laakiin laascaano 15 sano haysteen maanta waxaanu dareemaynaa jawi farxadeed maadaama xilligaas anagu ka soo galay miyi ka soo galay oo ka soo galay dhanka bariga tuulooyinka oo maatadii shalay la qaxiyay aanu ka rarnay meesha aanu keenay maanta jawiga aad buu fiican yahay magaaladu aad bay u camiran tahay jawigeeduna waa jawi nabdoon aad iyo aad baan uga raysanay caafimaad baan maanta dareemanaa quluub caafimaad qabtaanu dareemanaa laakiin awal quluubteedu caafimaad ma qabin maskaxdaydu caadi ma ahayn hurdadaanu seexano hurdo ma ahayn maanta waxaan dareemanaa jawi fiican oo nabdoon aad iyo aad baa deegaankii iyo dhulkii iyo dhirtiiba uga raysatay insha Allah tacaala dhibaatooyinkii lagu qabo waxaa ka mid ah gabdhaha halkaa jooga inay haraati beerka kala dhici jireen inaanu warkadaaya haddii in xabadna loo ku jawaabi jiray waxaa ka mid ahay dadkaas in ay cabsi u carareen darteed iyadoo aan xabadi dushooda ka dhicin haddana ay sirahayn taayirka la ku leeyahay kaalaha saasa ka mid ahayd waxaa ka mid ahaa dhibaatay deegaanka ku hayeen deegaanka hadda deegaan ma noola hadeer dhir ma noola qurac ma noola higla ma noola meegaag ma noola wax nool ma jiraan xoolihii wadanka waa ka carareen
reermigii degmada waa ka fogaaday cidii soo dhawaatay mar hadda waxaan soo maray jeexa la madaxda ay shalay ka guureen saasaa reeruhu degdegayeen oo reermigii iyo arigii iyo degsiimadii saasay barwaaqay ahayd saasaa xooluhu ugu soo dhawaadeen awal degsiimadii dadkii deegaanka deganaa waa ka fogaaday reer walba wuxuu gaaray ilaa 100 kilomitir ilaa 70 kilomitir hadda maantadan waa soo degeen dadkii shalay guryahan ka qaxay bay la soo degeen maanta marka dhibaatooyinka deegaanka saas ka hayeen magacayga waa Maxamed Cabdullaahi Jaamac Shabeel waxaan ahay dadka ku dhashay deegaankan waxa weeye marka xogta la iga wareysanayo ka waramo marka ugu horeysa anigu waxaan ragii ugu hore markii ugu horeysa lagu qabsay Laascaano qabsiga hore Laascaano baan joogay muddo dheer markaan joogayna tanaan soo qaxay madaan soo qaxayna waan laga dabayma waa la qabsaday waxa qabsadayna dawlad ma hayna maamulka SLM buu ahaa maamulka SLM buu ahaa waxa weeye joogfal iyo dhibaato badan baa lagu qabay joogfalka lagu qabayna iyagu dawlad bay iska dhigayeen laakiin dawlad ma ahayn SLM tii asalka ahayd bay ahayd anigu qabaayil wax oran maayo qabaayil loo gudbi maayo laakiin waxa dalka qabsaday SLM bay ahayd wixalaala wixii ay ku kacayeen wax maamul ku kaco ama dawladii ku kacdo ama lagu qiimeeyo ma ahayn laakiin waxa la isu gashaday shaad laga dhigayo dawlad waxa weeye toogfalka qofka bilawaadniga wax laga qabsado maskaxda ugu qaalisan maskaxda la iska haysto qofku sawd ma lahayn sawracna ma lahayn qofan sawd iyo sawr alaayna de waxba uma kala socona wax sawd ma aanu lahayn saaka marka iftiin baa noo muuqda ilaahay baana dhigay waxaanu ugu mahadnaqaynaa dadkii keenay jabaabiirta gudida garaadada dalka u dhashay ee u midoobay ee saaka anaga aanu harkoodii tukaraq ugu soo noqonay taladoodii iyo tusbadoodii baan u mahad celinay si mug iyo miisaan aan ugu mahad celinay wax god galay ma soo noqonayaan inaan baasha kaaga filan ninkii ay wadan jireen salka maqaanka uu maanta ay masiyeen baa kaaga filan wiilay ka jeceliyeen Soomaaliya kama dhalan anigu caayina maayo waxaan oran maayo wixii carabka tolkiisa ku filaaday isaga anagu waxba uga gudbi maayo waxa weeye marka waxaan leeyahay dhulbahantana maanta wuxuu taagan yahay cid kasta oo shacab oo gacan naga geysatay oo hawsha naga kalkaalisay waan mahad celinay halkii ayna dhigeen baanu noo daba fadhinaa halkay noo hogaamiyaan baanu hogaasamaynaa saqiir iyo kabiir dhadig iyo labood halkay noo tujiyaan way tukanaynaa waxaanu ku midaysanahay oo aanu isku raacsanahay dhabadii ay noo jeexeen iyo magaca ay noo jeexeen iyo labadii caalan ee jabaabiirtu keentay isimaduna ay dhaqan geliyeen kaasaanu taageeray horena u taageer haddana ku taageersanahay ama dibadooda ha jooga ama Ameerika ha jooga ama afarta qaarad meel kasta ha jooga horta waxaanu salaamaynaa bahda saxaafadda ee media horfadhi waa idin salaamaynaa booqashada aad noogu timaadeen magaalada Tukaraq halkan waxaa jooga dadkii deegaanka joogay meeshani waxay ka mid tahay rugaha iyo deegaanka Khaatumo state bay ka mid tahay arlada jamaahiirtu ay ku dagaalamayso sida la socotaan muddo 15 sano ayaa ciidamada Soomaaliland aaga Laascaano joogeen halkan anaga waxay nagu soo guureen 2017 bay nagu soo guureen ilaa 2023 maalinkii shalay ahaa ayaa ciidamadii SNM-ta ee aagan Tukaraq bariga ka xigay oo in badan cunaqabatayn iyo masiibo nagu hayay oo dhirtii xaalufiyay oo anagu ma yeedhaan oo ahayn ayaa jamaahiirta xaquudirirkaahi gacan bira kaga saartay shalayto meesha tan aad iyo aadna way nagu gabadeen markii jamaahiirtu ka saartay meesha way nagu guryahay kula gabadeen waadna fahansantihiin meel dhufays laga dhigtay waxyaalo badan baa de soo gaaraya wixii shalay anaga na gaaray alxamdulilaahi rabbil caalamiin baanu aragnaa xaquudirirkayagii baa naga saaray dad nagama dhiman guryahana Laascaanoodoo tan ka weyniba duntay raali baanu ka nahay iyagoo dabada ka wada haddeer waxaa naloo sheegayaa inay weli qoladii jamaahiirta meesha ka saartay isku sii haystaan maraagi iyo airportkii
waanu u mahadnaqanaa ciidamada xaqudirirka waanu u mahadnaqanaa annaguna dhibaato kale ma qabno dhibaato nimankaasaa nagu ahaa SNC waxay geysteen dhibaato aad u fara badan markaan kaaga soo qabto inta aan ka xasuusnahay dumarkii way naga kufsadeen dhirtii way xaalufiyeen ugaadhii way xaalufiyeen qowlka iyaga dad xora ma aanu ahayn xorriyatul qowlkii bay noo diideen isweer bay sidaa nagaga hayeen deegaanka haddaad aragtid way xaalufiyeen waa gurma go'an ugaadhii way dhammaatay dumarkii way kufsadeen inta yukaan maaj imisaa laga heli karaa haddeer magaalada gudaheeda inta ay gabadh kufsadeen oo waxaanu gaadhnay heer aan gabdhuhu adhiga noo raacin gabdhuhu xoolaha noo raacin baanu gaadhnay oo ayna gaadhsiiyeen dadka nagaga dhintay ee qaraxa iyo miilooyinka nagaga dhintay yukaan maaj lama koobi karo adigu ceelkaasaan hayaa ceelkaa magaalada baan hayaa odayga hayay baan ahay 10 jeeray maxaabiis ahaan ii qateen biyihiina iminka lacagtoodii waa ku leeyahay intaasoo sano waan ku leeyahay waana leeyahay